tani waa xaqiiqada dhibaato madaxweynaha Soomaaliland Rafiiq Laah ayaa u muuqata mid sababi karta halis dad iyo dalba galaafata waxaa loo jeedaa dhawaaqyada dhiilada leh ee ka dhex yeedhaya jiha kastaba Soomaaliland intaynaan u gudbin sababaha keenaya iyo waxa madaxweynaha ku kalifaya habdhaqanada fahamkoodu muhiimka u yahay si bulshadu uga nabad galaan bal marka hore dadkii waa sidee maxaa ku habsaday xaggan u fiirso waa hooyooyin ilmaynaya واسكرتي قرق الله عليك سليم عنك تدليا وياي ما تدعس هذا دليسان ما عرورتي ما تدعس دليسان dhinacan kale eeg waa duqayti cataabaya saddex iyo toban xukun ayaan haystaa kow فيلم بدعي ويدا وحكي حكومة واحد فيلم ليلا علي بدعي ويدا هو ما يكون بدعي ويدا رشيد الله كان عايز يصدق ليلا ما كم إذا مدحوينها ما أنت كذاير قانوني أنا واحد من المدن ما حلي يروح ولا شيء يجي يقول لي بدو ما شغال ما كل شيء ولا علي أنا شغال كل شيء ولا ما هي يقول لي يدخل وأنا قاعد شو بتفكر وأنا قاعد dhankan kale baldugo waa sharcigii oo la laalay bal iyana u fiirso waa ciidamadii oo kuwii ay u adeegi lahaayeen loo adeegsaday dhankan kale waa mucaarad ka talinaya inaan dalku dumin dhinacan waa culimo oo diinka digaya halista aloosan waxaa sii dheer qafaalashada dad aan waxba garabsan iyo dumar iyo caruur xabsiyo lagu guraayo su'aasha isweydiinta mudan ayaa maxay tahay sababta madaxweyne biixi isagoo dalka xukumaya ku kalifaysa inuu waxaasi oo dhan bulshadiisa u quuro xaqiiqa raadin ayaanu samaynay waxaa la darsay dabeecadihiisa iyo habkan uu u dhaqmayo khudbad kasta iyo sawir kastoo madaxweyne biixi laga qaaday waxaanu hor dhignay aqoon-yahano iyo dhaqaatiir waxaanu turjunnay dhammaan hadalladii iyo khudbadaha uu hore u jeedshay waxaanu la xidhiidhnay dhowr iyo 50 qof oo isugu jira dhaqaatiir iyo aqoon-yahanin waaweyn oo Soomaaliya ajaanib leh waxaanu helnay maxsuulka xog ururinta baadigoob baanu galay muddo badan qaatay waxay nagu riday daraasado waaweyn oo dunida hore isugu tagtay kawkabkan aynu ku guud noolahay ma jirto waxaa la darsi habdhaqanka noocan oo laga sameeyay daraasooyin muddooyin fara badan lagu hawlana ayaa waxay daaha ka qaadeen inay tahay xanuun ku dhaca maskaxda aadamaha kaasi oo ka halis badan cudur kasta oo maskaxda aadamaha asiiba cudurrada maskaxda ku dhaca oo sida la yaqiinsan yahay 97% dhibaatadoodu hal qof ay ku kooban tahay hase yeeshee kan haatan dhammaan calaamadihiisa ay ka soo ifbixeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ah mid waxyeeladiisu daran tahay taasoo ay sii xoojinayso mas'uuliyadda uu hayaa saameynta cudurkani ku leeyahay xanuunkan waxa lagu magacaabaa malignant narcis wuxuu ku dhacaa maskaxda qofka ibni aadanka waxaana halista iyo dhibaatadiisu ugu baaxad weyn tahay kolka qofkaasi bulshada in uu mas'uuliyad u hayo macallinimo ha ahaatee sidoo kale xanuunkan lagu ogaaday baadhitaano ay wada sameeyeen jaamacadaha George Washington iyo Cornell University oo qoray cilmi baadhista daraasada la magac baxday Leaders and Followers in Dangerous World taasoo soo baxday sanadii 2004 ayaa daaha ka qaaday waxay sheegeen in hogaamiyayaasha u dhaqma guul isaga u gaara dareemid la'aan dhibaatada dadka nacbeynshaha wanaaga shaki iyo khaakhaya waxa loogu yeero paranoia iyo in ay wax walba xoog ku muquuniyaan waxa ku keena inuu yahay xanuunkaas sida daraasaduhu sheegeen waxa kale oo jira sifooyin kale oo lagu garto dhaqanka iyo dabeecadaha qofka qaba xanuunkan habdhaqankaas oo la yiraahdo sadistic waxa uu sababaa in qofkaasi kaliya ay raali geliso waxa mujtamaca dhiba waxa qofkaas masiibadani haleesho raali gelinaya qaylada cadtowga tawaawaca ilinta cabashada saawaha uu umada bado iyo sida uu isagu dadka karaamada ugu qaaday ugu sameeyo waxa loogu yeero afka qalaad humilitate waxa qofkan dhibta in laga caban waayo la dhibtoon waayo
la qaylin waayo iyo in dadku kala kulmaan wax raali geliya xataa xayawaanka maaha qof u fiican qofka uu ku habsado xanuunkan calaamadihiisa ay ka soo ifbixeen dhammaantoodba madaxweyne muuse biixi cabdi wuxuu dagaal ba'an la gaalaa cadaaladda wuxuu burburiyaa wax kasta oo u sabab noqon kara in bulshadu dhib kaga baaqsato isagoo u sii maraya mas-uuliyadda lagu aaminay wuxuu la col yahay in khaladaadkiisa wax laga weydiiyo wuxuu ka dheeraa dadka ehlu cilmiga iyo ehlu caqliga wuxuu xushaa oo aad u ilaashadaa kuwa aadka ugu dhega nugul ee ka shaqeeya waxa raali geliya oo oohinta iyo dadka dhibaatayntoodu ay kow ka tahay waxaa kale oo jirta qayb kale oo iyana xanuunkan xidhiidh la leh oo ah waxa loogu yeedho egocentric waa qof wax waliba keligii ka bilaabmaan keligiina ku dhammaadaan cidda la talisa ee doonta inay saxdana wuxuu u aqoonsan yahay qofkani cadowgiisa koowaad qofka lagu sallido xanuunkan bahalka ah waxaa kaloo si weyn loogu gartaa inaanay qofkaasi maalka adduunyada guud yaaloo dhammi aanu deeqi karin hurdadu waa ku yar tahay waxaanuu doonaa si uu hurdo u helo in loo soo ururiyo dhammaan dhawaaqyada iyo cabashooyinka agagaxale ee kasoo yeedhaya bulshadiisa xanuunkan oo madax badan iyo shacabkoodii galaaftay xataa kuwa shirkada maamulaya iyo shirkadahaasiba sahayday ayaa xilligan madaxweyne biixi la maraya meel aad u xun ficilada uu ku kacayo ee xanuunku sababay waxaa ka mid ah daawade halkan bal u fiirso waa neef geela hashan wuxuu doonayaa madaxweynuhu inuu maalo hase yeeshee si ay hashu u xanuunsato waa kan oo wuu qaniinayaa inay dhibaatooto ayuu u qaniinayaa xaggan bal eeg dumarkani waxay joogaan maalintoodii 8 maarso maaras waa maalinta haweenka dunida waxay rabaan in looga sheekeeyo kaalinta ay bulshada kaga jiraan iyo muhiimadda ay qarankan u leeyihiin waa kaas wuu ka oohinayaa isna wuu ilmaynayaa si ay qalbiyadooda u daqmadaan xanuunka ayaa sababta leh maantana xoolad horle iyo dagaal baa la qabtay waxaan u qaadanaa deklarashada foor inaad dagaal cad ku soo bandhigayso leeda dagaal baa noqday dhankan kale soo eeg wuxuu ku raaxaysanayaa burburinta bulshadiisa cabashadoodu waa badhaadhihiisa guryahoodii ayuu xoog kaga qaadayaa waa uu xidhxidhayaa si ay u xanuun u dareemaan sababtu waa cudurka haleelay madaxweynaha oo meeshii u darayd xilligan la maray sida daraasadaha ku cad qofka xanuunkan la rafiiqa waa qof been badan oon wacad lahayn wax kasta oo wax ku saxmayaan ama bulshadiisa tabashadooda buuxin kartana waa uu ka dheeraada bal dib u eeg inta shirar ee dalka ka dhacday oo beelaha dalka wada degaa u soo gudbiyeen si xal loogu helo ama wax looga qabto halkoodii madaxweyne biixi kama u hoos qaaday waxaa kaloo lagu gartaa saaxiibadiisa ugu dhow ayaa ah dadka ugu horreeya ee ballanta kaga baxo waa kan Professor Samatar oo ka warramaya markuu muuse dhisaaye ee la doonaya inuu madaxweyne noqdo wixii dalka u danah ee ay ku ballameen dhammaantood waa uu ka baxay madaxweynaga cali khaliif galayd waa kan isna aqoon-yahanka beenta rumooda ayuu ku jiraa weli hargeysuu ku gaaf wareegaya burcuu maraya wuxuu raadinayaa xal Soomaaliland ku sii wada joogto madaxweynuhu ma ogola dadka aqoonta leh inuu duleeyo ayuu jeclaysanayaa xanuunka sababta leh qofka xanuunkani hayo khaladkiisa waa dafira oo been ayuu isku difaaca sidaynu hadda ka hor u soo joognay madaxweyne biixi xilalka qaranka nooca uu ka yeelay iyo sida uu bulshada Soomaaliland ugu xaq sooray waata isagoo hal qoys wada siiyay intaasoo xilal ah waxba lagama weydiin karo si uu wax yidhi haddii wax laga weydiiyo waa kan wuu dafirayaa wuxuu leeyahay qalmaan soo qaata bal tiriya waxaan sameeyey waxba kama jiraan xanuunkaa sababta leh adigu tiriyo kaabeelka soo qaato tiriyo haddaan balanskii reeruhu iyo aan isu miisaamin dee waa horta la faalaas haddii isu miisaamina tiraabada taala meesha waa wax la yaqaano oo tirinayo marka la isku haysto beeruhu ma miisaano tirada sida dhaqaatiirta iyo aqoon-yahanka xaqiiqa raadinta nala gashay oo qaarkood ajaanib yihiin saan hore u soo sheegnay ay xaqiijiyeen kolkay daawadeen muuqaaladiisa sawiradiisa fasireen luuqadda jidhka aadamaha dad ku xeeldheer aan la kulannay wuxuu kaloo mar kasta doonaa qofka xanuunkaasi hayaa inuu dadka cabsi geliyo muuqaalkani wuxuu ka mid yahay kuwaanu la wadaagnay dhaqaatiirta iyo dadka aqoonta u leh
akhrinta luuqadda jidhka. muuqaalkani waa maalin madaxweynuhu shir jaraa'id qabanaya. waxaa ka qayb galay shirkaa jaraa'id 40 saxafi in ka badan. sida kaaga muuqata luuqadda jidhkiisa waa kan uu qamuyeysanaya. argagaxgelin ayuu muujinayaa. waxay culimmadu ku sharaxday inay tahay cabsigelin. waxay kaloo tilmaameen kolka uu heerkaas marayo tallaabada keliya ee la qaadi karaa inay tahay in bulshada la fahansiiyo halista xanuunka madaxweynaha rafiiqa la ah uu dad iyo dunyaba ku keeni karo. واسكرتي قرق الله عليك سبب عنك تدليا ويويوي